xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhaxaysa dalalka Suudaan iyo Itoobiya isla markaana labada dhinac ay isku dirayaan hanjabaado toos ah ayaa haddana dhinaca kale ay wadaan galaangal ay ugu jiraan sidii ay qolo kasta dhankeeda u dooni lahayd saaxiibo siyaasadeed oo ay hesho waqtigan xasaasiga ah. Khartoum iyo Addis Ababa waxay labaduba u baahan yihiin taageero xagga diblomaasiyadda ah si qolo kasta caalamka loogu tuso inay iyadu garta leedahay. waxay bilaabeen inay wakiiladooda siyaasadda u kala diraan dalalka jaarka la ah ee ay ku wada jiraan urur goboleedka IGAD iyo Midowga Afrika. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka saameynta culus ay ku leedahay xiisadda u dhaxaysa labada dal ee Suudaanta Waqooyi iyo Itoobiya. waxayna Muqdisho labadaba la leedahay xiriir xooggan oo aan bilaaban waqtigan. 48 saac ee la soo dhaafay Khartoum waxa ay wafuud u dirtay Qaahira, Nairobi iyo waliba dalalka Jaamacadda Carabta oo ay ka mid tahay dowladda Sacuudi Carabiya. waxay dhammaantood ka doonaysaa taageero diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale haddii ay xaaladdu dhabaqdo. Qaahira waxa ay caddaysay inay taageero walaalnimo iyo hiilba siin doonto ciidamada xoogga dalka ee Suudaan. war-saxaafadeed la soo saaray waxa ay sheegeen in amniga Suudaan uu yahay amniga dalalka Carabta, sidaasna uu dhigayo axdiga Jaamacadda Carabta in la isku heliyo waqtiyada adag. Muqdisho waxaa soo gaaray wafdi ka socda dowladda Itoobiya sida ay xaqiijinayaan ilo xoogaa leh, waxayna la kulmeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya. ujeeddada ay kala hadleen waa xiriirka labada dal iyo dhacdada xuduudaha ku salaysan ee Suudaan kala dhaxaysa. Soomaaliyana waxay Itoobiya ka doonaysaa sidii ay garab iyo gaashaan ugu noqon lahayd qadiyadan oo taageero diblomaasiyad ay ugu muujin lahayd. sidaas oo kale wafdi ka socda dowladda Suudaan dhankooda waxay ku wajahan yihiin Muqdisho si ay ula kulmaan madaxda dowladda federaalka oo ay kala hadlayaan sidii aragtida Suudaan loo taageeri lahaa, maadaama labada dalba ay ka wada tirsan yihiin Jaamacadda Carabta. Suudaanna ay taariikh saaxiibtinimo oo fog la leedahay Soomaaliya waxa ay xubin ka tahay urur goboleedka IGAD, Jaamacadda Carabta iyo Midowga Afrika. sidaas oo kale waxa uu si dheer Soomaaliya inay hadda qayb muhiim ka tahay golaha iskaashiga geeska Afrika oo ay ku midaysan yihiin madaxda Itoobiya, Soomaaliya iyo Eritrea. waxaana heshiis ay hore u gaareen saddexda dal ku jira qodob caddaynaya in amniga iyo siyaasadda ay isugu hiiliyaan waqtiyada adag, iskaashina ay ka yeeshaan. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay hore dhexdhexaad uga noqotay qadiyado ku salaysan gudaha wadamada Carabta iyo tan ay isku hayaan Masar iyo Itoobiya ee biyaha webiga Niilka. waxayna kala kulantay cadowsi siyaasadeed oo kii koobaad uga yimid Imaaraadka Carabta oo doonaya in xiriirka loo jaro Qatar oo ay hayeen xilligaas, iyo Qaahira oo doonaysa in la cambaareeyo tallaabada Addis Ababa ee biyo-xireenka Itoobiya, taas oo ay dowladda federaalka ee Soomaaliya dhexdhexaad ka noqotay. waqtigan laba daran mid dooro ayay xaajadu ku tahay dowladda federaalka. mid waa dhanka Suudaan oo taageero dhaqaale siin jirtay dowladihii ku-meel gaarka ahaa ee dalka, iyo ardayda Soomaaliyeed oo deeqo waxbarasho ay muddo dheer gacan qabatay Khartoum. hadda oo ay taageero u baahan tahay ma heli doontaa hiilka Soomaaliya. dhinaca kale Addis Ababa waxay xiriir wanaagsan la lahayd Soomaaliya muddooyinkii u dambeeyay. labadii sano ee la soo dhaafayna waxaa yaraaday faragelinta siyaasadda gudaha Soomaaliya ee Itoobiya. madax Soomaaliyeed oo marar kala duwan booqday Itoobiyana waxayba sheegeen inay dhammaatay cadaawaddii hore ee dhulka ku salaysnayd ee labada dal u dhaxaysay. labada dal kee ayay taageeraysaa Soomaaliya, kee ayayse ka baaqsanaysaa? waqtigan waxaa si weyn isha loogu hayaa madaxda dowladda federaalku go'aan noocee ayay ka qaadan doonaan xiisadaha u dhaxeeya Suudaan iyo Itoobiya. sidaas oo kale Soomaaliya miyay ku khasban tahay inay dhinac taageerto, mase ugu dambaynta waxay qaadan doontaa go'aan dhexdhexaadnimo oo labada dhinacba aysan cadowsi siyaasadeed iyo mid amni midna kala kulmin?